وبركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان oo ah 10 cusub waxaanu idinka akhrin doonaa book bilow ah. Boogan bilowga ah ee aanu idinka bari doono waxa la yiraahdaa New Concept English. Haddii aad rabtid in aad heshid 10 kan oo qoraal ah si aad ardaygu ula socdo 10 kan wuxuu ka mid yahay casharada ka bixi doona iskuulkan Aflax. marka casharka koowaad waa bilow aad u hooseeya waxaanan ugu talagalnay dadka baranaya luqadda Ingiriiska ee bilowga ah. waxaanu ku bilaabaynaa maanta erayada tusaale ahaan mudan qofka aad ixtiraamka mudan markaad ku oranaysid qof sida erayga iga raali noqo eraygaasi waa excuse me. iga raali noqo waa excuse me. sidoo kale excuse me, can you give me that pen? iga raali noqo qalinka ma isiin kartaa. sidaasoo kale waxaad oran kartaa excuse me, can you give me that salt? iga raali noqo ma isiin kartaa cusbadaas oo kale. eraygan marka excuse me waa eray xushmadeed la yiraahdo qofka markii aad la hadlaysid qof aad xushmaynaysid ama sideedaba aad qofku doonaba ha noqdee. waxaana wanaagsan xataa caruurta oo kale erayadan caynkan oo kale ah inuu qofka uu baro. sidaasoo kale haddii qof uu ku yiraahdo excuse me maxaad oranaysaa marka qofka kale wuxuu ku oranayaa yes ha. marka qaarkood waxaa dhacda qof inuu ku yiraahdo excuse me qofkii kalena ugu jawaabo excuse me. marka laakiin haddii ku yiraahdo qof iga raali noqo warka jawaabteeda waxaa waaye qofku wuxuu ku weydiisanaya inaad u ajiibtid oo tiraahdo ha. qofkan marka wuxuu weydiiyey excuse me iga raali noqo marka qofkii uu soo eegay yes buu yiri. is this your bag? boorsadan maadiga iskale. is this your bag? boorsadan maadiga iskale. haddii uu qofka uu sidaasoo kale aad rabtid si kale inaad u weydiisid erayga pardon eraygaasna waa eray la isticmaalo oo la mida iga raali noqo oo kale. sidaasoo kale haddii marka lagu weydiiyo lagu yiraahdo is this your book? kani ma buugaagiiba? is this your car? kani ma gaarigaagiiba? is this your house? kani ma gurigaagiiba? marka haddaa qof leedahay waxaan ma adigaa leh tusaale ahaan is this your car? kani ma gaarigaagiiba? ha markuu ku yiraahdo then waxaad oran kartaa tusaale ahaan waxaad oran kartaa kale you park in a wrong side. waxaad dhigatay meel qaldan oo kale. so qofka marka haddii lagu yiraahdo is this your car? kani ma gaarigaagiiba? maxaad ugu jawaabaysaa? yes it is. ha waa gaarigayga. yes ha waa gaarigayga. sidaasoo kale haddaad marka qofka aad u mahad celinaysid maxaad oranaysaa thank you very much. eraygaasna waa eray mahad celin ah. eraygaasina waa erayga qofka sida dadka loo yiraahdo aad ayaad u mahadsan tahay. let's say aanu niraahno waxaad rabtaa inaad tiraahdid waxaan aniga iskale my car. eraygaanu soo barannay is this your car? kani ma gaarigaagiiba? yes it's my car waa gaarigayga. is this your coat? kani ma coatkaagiiba? yes this is my coat kani waa coatkayga. is this your umbrella? kani ma umbrella? yes it's my umbrella ha waa umbrelladayda. is this your ticket? kani ma ticketkaagiiba? yes it's my ticket. is this your wallet? tani ma boorsadaadii jeebka? yes it's my wallet ha waa boorsadeedii jeebka. marka here is my ticket tusaale ahaan kani waa ticketkayga. let's say tusaale ahaan see u oran kartaa waa kanaa qalinkaagii? waa kanaa qalinkaagii? waa kanaa buugaagii? waa kanaa maxaan ku yiraahdaa lacagta jeegaagii? okay this is baad leedahay marka this is your book. kani waa buugaagii. this is your coat. kani waa coatkaagii. this is your pen. kani waa qalinkaagii. this is your t-shirt. tani waa funaanadaadii. this is your pencil. kani waa qalin qorigaagii. marka this is baad isticmaalaysaa. this is your pen oo kale waa qalinkaagii. ama here is
your pen waa kana qalinkaagii tusaale ahaan aynu niraahno qof ayaa qalinka aad ka amahday qalinkaaga markii qolfkii qalinkii uu ku aad u keentid maxaad oranaysaa marka waxaad oranaysaa here is your pen waa kana qalinkaagii here is your book waa kana buugaagii here is your bag waa tana boorsadaadii here is your whatever you qofka hadda waxaad ka qaadatayba markaad waxaad oranaysaa here it is waa kana waxaagii sidaasoo kale let's say tusaale ahaan aanu niraahno is this your pen kani maqalinkaagiiba is this your pencil kani maqalin qorigaagiiba sidaasaad u weydiin doontaa is this your watch kani ma saacadaadiiba is this your car kani ma gaarigaagiiba is this your house kani ma gurigaagiiba halkaas haddaanu kaga gudubno sida loo yiraahdo this is yours waxan waa waxaagii tusaale ahaan adiguna aad u oran kartid this is mine waxan waa waxaygii marka intan ayaanu qaybtan aanu ku joojin doonaa waa casharka koowaad insha Allah casharkiisa labaadna waxaad ku maqli doontaan qaybta soo socota hadii ilaahaymo assalamu alaykum